xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa sheegay in mashruuc isbitaal casri ah oo laga hirgelin lahaa magaalada Hargeysa ee horjoogsatay xukuumadda Somaliland ee madaxweyne Muuse Biixi hogaamiyaha ka yahay, waxaanu farta ku fiiqay wasiir Qambi iyo agaasimaha madaxtooyada Somaliland oo uu dhaliilo xooggan u soo jeediyay. xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud ayaa sheegay in arrintaas oo uu kala hadlay agaasimaha madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile, balse uu ku tilmaamay xildhibaanka mid aan Hargeysa waxba ka ahayn waxna ka qaban karin. xildhibaanka oo kula hadlay warbaahinta xarunta golaha wakiilada ayaa hadalkiisa ku bilaabay sidan: waxaan waday mashruuc Mareykan uu walaalkay ka shaqeynayay Maxamuud Jaamac Xaamud, kaasi oo ah Mana Clinic Hospital oo uu ku baxayay $1.5 milyan, $1 milyan iyo badh oo doolarka Mareykanka ah. waxaanu doonayay inay niman Mareykan ahi ay dhakhtar noo dhisaan, wayna noo diyaariyeen dhisaynkii iyo wixii oo dhan. 2 guri oo halkan ku yaala ay ku jirta habaryartay iyo gabadh aan abti u ahay ayaanu islahayn ka dhisa oo ay dowladdu leedahay. wasiirkii ayaanu u tagnay, wasiirkii wuxuu yidhi waa sheeko saxan, waa macquul. haddana wuxuu yidhi markii aan warqadii geynay way adag tahay in madaxweynaha laga saxiixo. wax kasta haddii la yidhaah madaxweynaha loo doono soo dalka oo dhami baabi'i maayo. waxaani aanu wadnay waa wax qaranka u dan ahaa. 50 qof ayaa shaqo ka heli lahaa mashruucaasi, waabu gubtay, ayuu yidhi xaamud. dhanka kalena xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud ayaa sheegay in arrintaas ay ula tageen agaasimaha madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile. agaasimaha madaxtooyada ayaan u tagnay, waxaan ku idhi howshaas ayaan waday, halkan dhulkaagii ma aha ayuu igu yidhi, ee dhulkaagii waa Hingalool iyo Yubbe. haddeer ayuu yimi isagu meesha, ana 1969kii ayaan imi. waa aqoon darro, waa jaahilnimo, waa daydaynimo qaabka uu u hadlayaa, ayuu yidhi xildhibaanka oo arrintan la yaabka leh ka hadlayay.